guddida wadada Ceerigaabo ayaa waxaa maalintii shalayta oo ku beegneed 30 August 2014 lagu wareejiyay deeq lacageed oo gaaraysa $6,700 deeqdaas oo isugu jirtay $4,295 oo hablaha jaaliyadda Soomaaliland ee magaalada Perth ee waddanka Australia soo direen taas oo ay ku soo hagaajiyeen maayarka Ceerigaabo iyo $2,400 oo hablaha reer Sanaag iyaguna dhinacooda wadadan ugu deeqeen waxaana munaasabadii lacagta lagu guddoonsiinayay guddiga wadada Ceerigaabo oo lagu qabtay goobta xilligan ay ka socoto shaqada wadadani ayna ka soo qayb galeen dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeyn ka hadlay injineer Cabdilaahi Cabdisalaan Sheekh Cali Jawhar iyo injineer Cabdilaahi Biixi kuwaas oo iyagu ka xog waramay xaaladda wadada iyo halka ay marayso iyo reer Ceerigaabo ahaan waxa maanta la gudboon ama looga baahan yahay waxa weeyaan shaqadu halkan joogna waxa weeye waa kilomitir 9,450 bundada waa bundadii 10 kilomitir ugu dambeysay weeye waxa ku jira 10 kilomitir horta waxaan malaynayaa 10 kilomitir oo yar hawl badan ee magaalada ka soo bilaabma 6 bunda ayaa ku jira labada u horeeya waxa weeye waa laba bundo oo jiifa afarta bunda kalena waxa weeye waa bundooyin ay biyo hoos marayaan ha kala weynaadeen marka waxa weeye qaar baa laba daloola oo daloolkiiba 2 mitir iyo bar yahay qaar baa 3 daloola 3 god oo min 2 mitir iyo bari ay galaan halka iminkaan joogno ee bundada ku xiran tahay waxa laga yaabaa inay kici doonto mitir iyo 7 horta aan joognay ka kacaysa mitir iyo 7 30 baa yaala 2 mitir kacdaan ugu talagalnay marka waxa weeyaan kolba bundadu meesha ku soo dhow imbaagmadka kacaya cartuulka kacaya carrada gashay wax yar maaha waxa weeye 65 oo mitir kuub weey wadadu waxa weeye sidii loogu talagalay u socotaa waxaad moodaa jayga laftiisu imika waxa weeyaan qaybtii horeysay wayna soo gaadhay karasharadii waxay noo yaalaan imika berbera laba karashar baa yaala labada karashar markay soo galaan waxaan muulaynayaa macna in yaani wadadu ay deen ka soo istaageen 10 kilomitir anagu waxa 10 kale survey-gooda hadda noo bilaabmay oo ku jirnaa teamkii survey-gu waa diyaar qorshihiina waa la soo approve gareeyay marka waxa weeye shaqadu meel kasta waxaad moodaa wixii hore loo qorsheeyay inuu dhamaanayo marka waxa weeye qorshihii labaad ee haddana 30 kilomitir ama 40 kilomitir xasan ay isku yareenin meelba 10 reelafo inuu 10 ku darro halkan 10 ku darno garaadka 5 baa markii hore balan garaysnaa 5 iyaga ku daraynaa waxaan soo survey garaynaynaa 10 kale oo inaaf madooba marka qorshaha in fact waxa weeye saas u soconaya umadahan hawl aan soo qabsanay cidii inoo hortay wadada inay socoto ama dawladda maanta joogta haato ama dadka reer Soomaaliland haatee way ku mahadsan yihiin hawl wanaagsan bay qabteen dumarku mahad badan bilay reer Ceerigaabo waxaan leenahay wixii ay dawladdu qaban karaysay waa la qabtay waxa la rabaa reer Ceerigaabo inay hawsha dhinacooda ka qabtaan waliba rag la hadlaya xuqaashiina salaadiintiina wixii ay ku ballan qaadeen guddidu way idinka sugaysaa dhinaca haweenka reer Sanaag xubnihii halkaasi ka hadlay ayaa waxa ka mid ahayd Marwo Nasre Ciise Xasan taasoo ka hadashay lacagta haweenka reer Sanaag maanta ugu deeqeen wadadoodan itaalka dumarka waa taqaaniino itaalka iyagan ku ridayn lacagtan aan sidno waa $2,400 oo dollarka Mareykanka waa aragtaa dawladda iyo shicibba waa laga wada qayb qaadanaya waanu hambalyeynayna dawladda waana u mahadnaqaynaa shicibkana waxaanu leenahay waa dhulkiiniye u soo jeesta xildhibaan qabar taleex oo ka tirsan golaha deegaanka Ceerigaabo ayaa iyaduna halka fariin uga dirtay dhammaan bulshada reer Sanaag gaar ahaan qurbo joogta fariin waxaan u dirayaa dhammaan reer Sanaag meel kasta ay joogaan khaasatan dadka dibadda noo dhagan nuglaada lacagta idin fadhida dadka dibadda dhulkooda dhisa goboladii naga dambeeyay ee bilaabay waanu qiiroonaa marka dibadda lacagtu saa isaga soo daba dhacdo walaalayaal markii ugu horeysay waxaadna tiraahdeen wadada bal qalab ha la arko qalabka indhihiino 15 aanu keenay waxaad tiraahdeen wadada ha la bilaabo wadadii waaba socotaayo 10 kilomitir bay maanta maraysaa haddeer waxaad maraysaan deemadowgii miyaa la arkay warbakhiilka hadalkiisa weeye ee ka daaya laamiga kaftanka ka daaya dariiqii wuu furmay wadankiina waad imanaysaan daaraa dhaadheer baad ka dhigaysaan ilaahay risqaha idiin barakeeyo jannada aan u tartanno waliba rag iyo dumar baa jannadii haddeer loogu tartamayaa gudoomiye ku-xigeenka guddida wadada Sanaag Siciid Barre Qorwa ayaa isaguna dhinaciisa ka hadlay xaddiga qabashada lacageed ee guddida soo gaadhay iyo habka loo maamulo intaba lacagta ku qabashada maqal iyo muuqaal ee wadada maanta waxay maraysaa dhowr iyo 30,000 intii hadda aanu hawsha wadnay waxa weeyaan waa dakhliga ugu badan oo maaragtay si maqal iyo muuqaal u soo xirooday qof kasta oo lacag ku soo shubaya sidaas waxaan u cadaynaynaa inaanu si maqal iyo muuqaal aanu u qabanayno isla markaana loogu shubayo akoonkii loogu talagalay iyadoo wax laga jaray iyo wax laga gooyay midna aanay jirin
gudoomiyaha guddiga wadada Ceerigaabo Boqor Maxamed Boqor Axmed oo munaasabadan ka hadlay ayaa isagoo u mahadnaqay haweenka deeqaha lacageed soo gaarsiiyay wadadan Ceerigaabo wuxuu sidoo kale bulshada reer Soomaaliland ugu baaqay inay xoogga iyo dhaqaalaha la isugu geeyo wadadan isku xidhaysa gobolada Sanaag iyo Soomaaliland inteeda kale waxaan u mahadnaqayaa hablaha reer Ceerigaabo ee maanta keenay horteena alaabta taala ee ugu deeqay shaqaalaha wadada mar labaad waxaan ugu mahadnaqayaa lacagta ay soo ururiyeen ee gudoomiyaha ku-xigeenku imika inoo tilmaamay $2,400 oo qaaraankii ay wadada ku dareena taas waa bilowgoodii waxa halka ka muuqata inay tallaabo door ah ka horeeyaan ragga waxaan kaloo mahadnaqayaa hablaha jaaliyadda Soomaaliland ee jooga Australia magaalada Beerto ee soo diray lacag dhan 4,295 ay soo mariyeen gudoomiyaha degmada Ismaaciil Xaaji Nuur waana muwaadiniin muujiyay inay dalkooda u maqan yihiin ee aanay shakhsiyaadkooda u maqnayn waxaan fariin u dirayaa dadweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan waxaan TV-ga ka daawadaa degmooyin badan oo laga furay wadooyin waa wada hinaas waxaas wadada qura ee dalku u baahan yahay inuu iskaga xidhmo Soomaaliland jiritaankeedina ku xidhan yahay waa taan maanta taaganahay waxaan leeyahay dadweynaha reer Oodweyne reer Balligubadle Salaxley Dawgacad dhammaantood waxaan leeyahay haddaad dad muwaadiniin Soomaaliyeed tihiin way wanaagsan tahay inay dhistaan wadooyin kale oo qurux badan oo dalkeena bilic sameeya laakiin waxa garataan inay inaga maqan tahay wadadii halbowlaha dalkeena isku xidhaysay waa Ceerigaabo walaalayaal indhihiina iyo dhagahaba u soo jeediya oo maalka geliya ugu dambeyntiina maayarka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo fagaaraha soo gabagabeeyay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaanu taaganahay iminka kiiloomitir 10 oo dhamma gabagabadii maraya muddo badan wax la lahaa waxba kama jiraan wadada dad badan baa sheekada waday waxaasi way suura gali waayeen waa beenoobeen way socotaa qalabkiina waa aragtaan shaqadiina waa aragtaan waxaan leeyahay dhammaan ummadda reer Soomaaliland waxaanu ka sugaynaa inay wadada u kacaan hantidoodana u huraan gaaraan reer Sanaag waxaanu leenahay anigu waqtigii waan London ballan baynu soo galnay lacagtii aad ku ballan qaadeen waa la idinka sugayaa iyo mid kale oo badanba shalayto ayaa waxay la soo hadlay jaaliyadda Soomaaliland hablaha degan magaalada Beert waxay igu soo hagaajiyeen lacag dhan 4,295 boqor iga qabo tiri waa gabdhaha jaaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Beert degan Australia waxaan la hadlayaa reer Ceerigaabo ballan baa qaadeen reer Ceerigaabo hadday lacagta tahay iyo hadday xooli tahayba 10 kiiloomitir waa dhamaaday wixiiba diyaar baa loo yahay degdegna waa loo rabaa waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish shabakada caalamiga Oodweyne News magaalada Ceerigaabo